Ma ogtahay in meelo badan oo kamid ah adduunka aad xabsi ku gali kartid waxyaabo caadi ah sida inaad xanjo calaajiso ama dilowdo dhalashada xaaskaaga. Sharcigu ma ahan kaliya mid ka hortaga dambiyada waaweyn, mararka qaar waa mid ka baxsan caqliga aadanaha. Maanta waxaan kashifaynaa qaar kamid ah shuruucda ugu yaabka badan, ugu qusurka badan ee weli ka shaqeeya dalal kala duwan. Sharciga koowaad: ha calaajin xajada. Tan iyo 1992 waxaa dalka Singapore ka mamnuuca soo dejinta iyo iibinta xajada. Waa nidaam loogu leeyahay ilaalinta nadaafadda guud ee dalka iyo bilicda magaalada. Sharcigan waxaa loo soo saaray sababtoo ah dadka ayaa xanjada ku dhaji jiray albaabada tareenada iyo dareemayaasha korontada, taas oo qarash badan ku bixin jirtay nadaafadda. Haddii lagugu qabto adigoo xanjo iibinaya, waxaad wajihi kartaa ganaax dhan $100 ilaa $1000 ama xabsi 2 sano ah. Saaxiib, haddii intaan la soo gaartay, fadlan akoonka subscribe dhe, video like saar, noona sii share garay mahadsanid. Hayloowin dhalashada xaaskaada. Jasiiradda Samu waa dambi sharci ah haddii ninku iloobo maalinta dhalashada xaaskiisa waa sida ayagu qabaan. Waa sharci loogu talagalay in lagu xoojiyo xiriirka qoyska iyo ixtiraamka haweenka. Haddii xaasku ay dacwad u gudbiso booliska, ninku waxaa la marsiin doonaa digniin adag ama ganaax. Sharcigan wuxuu ragga ku qasbayaa inay markasta xasuusnaadaan maalmaha muhiimka si ay uga fogaadaan dhibaato sharci ah. Ha la bixin magaca madaxweynaha. Dalka Kuuriyada Waqooyi qofna looma ogolo inuu yeesho magaca madaxweynaha hadda jira ee Kim Jong-un. Waa nidaam qofka madaxda ah loogu dhigayo mid ka sareeya dadka caadiga ah oo aan la tartami karin. Markii Kim Jong-un uu qabtay xukunka, dowladdu waxay amar ku bixisay in qof kasta oo magacaasi leh si degdeg u bedelo. Sidoo kale waxaa jira tiro xadidan oo timaha loo gooyo oo dadka loo ogol yahay si muuqaalkoodu u ahaado mid dowladda nidaamisay. Sharciga afaraad: dhoola cadaynta qasabka ah. Magaalada Milan waxaa ka jira sharci qadiimi ah oo dadka ku qasbaya inay dhoola cadeeyaan markastoo ay joogaan meelaha fagaaraha ah. Waa sharci loogu talagalay in magaalada loogu dhigo meel farxad leh oo soo jiidasho leh. Sharcigan wuxuu soo baxay xilli magaaladu ay rabtay inay kor u qaaddo niyadda dadka. Waxaa jira 3 meelood oo laga cafiyay dhoola cadaynta, sida haddii aad joogto isbitaal ama aad ku jirto aas, ama haddii aad ka shaqaynayso goobaha gurmadka ee degdega ah. Inkastoo aan hadda si adag loo furin, haddana waa sharci weli ku yaala buugaagta. Sharciga shanaad waa Metablue. Dalka Japan waxaa sharci darro ah in dadka da'dooda u dhaxayso 40 ilaa 74 sano ay noqdaan kuwa cayilan ama miisaankooda aad u kordho. Waa nidaam ay dowladdu ku xakamayso caafimaadka bulshada si looga hortago cudurrada wadnaha iyo macaanka. Sharcigan oo la yiraahdo Metablue wuxuu dhigayaa in shirkadda iyo maamulada deegaanka ay cabiraan dhexda shaqaalahooda sanad kaste. Haddii uu shaqaalaha cayilo, waxaa shirkadda lagu soo rogayaa ganaax lacageed. Qofkana waxaa lagu qasbayaa in uu aado casharada dhinaca caafimaadka iyo jimicsiga ah. Shuruucda dunida mararka qaar waxay noola muuqdaan kuwo waali ah, laakiin mid kasta wuxuu ku dhashay taariikh ama baahi markaas jirtay. Inkastoo shuruucda qaar ay u muuqdaan kuwo lagu qoslo, haddana waxay ina tusaysaa sida ay u kala duwan yihiin nidaamyada bulshada dunida. Adiga midkee kuliya badnaa? Ma sharciga miisaanka ee dalka Japan mise dhoola cadaynta? Noogu reeb fikirkaaga qaybta faalada. Mahadsanid.